waxaa jira dunida qawaaniin ay dalalka dunidu leeyihiin oo agteena yaab ka noqonaya, laakiin ay hubaal tahay inuu sababa ka dambeeya oo keenay. waxaa suuragal ah in aad ka shakido amaba aad tiraahdo malaa wax jira ma ahan, balse waa wax jira oo xaqiiq ah. Kuuriyada Waqooyi. Xukuumadda ayaa kuu sheegaysa qaabka aad timaha u jarayso. Kuuriyada Waqooyi ayaa ah dowladda ugu badan ee qawaaniinta la yaabka leh ay ka jiraan. Tusaale ahaan, cid kale gaari ma yeelan karto qof shaqaale dowladeed ah ama ciidanka dowladda u shaqeeya mooyaane. qofna xaq uma lahan inuu tintiisa sida uu doono u jarto. waxaa timaha u jaran kartaa sida sharciga ee xukuumadda ogashahay oo qura. haddii shakhsi uu galo dembi, qoyskiisa oo dhan ayaa u qoolan ciqaabtana la qaybsanaya. waxaa la ogol yahay 3 telefishin oo keliya oo ku hadla codka xukuumadda. ruwaayad kasta iyo hees kasta aan ammaan dowladeed ku jirin lama ogola. ciddii soo qaban qaabisaa arrinka waa lagu maxkamad. in internetku la galo waa mamnuuc oo qaanuunka ogoleen. waxaa adeegsan kara oo qura ciidanka iyo qoyskooda iyo ardayda dhigata jaamacado gooni ah oo si gaar ah loo soo xulay. qalabka kombiyuutarka Kuuriyada Waqooyi kuma shaqeeya nidaamka Windowska ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada caalamka. waxayse ku shaqeeyaan nidaam Kuuriyada iyadu sameysay oo u gaar ah loona yaqaano Red Star Korea. qofka dalxiiska ee booqanaya Kuuriyada Waqooyi waxaa la raacinayaa shaqaale dowladeed oo tilaabo ula soconaya kolba waxa uu qabanayo. haddii uu xitaa doonayo inuu sawir selfie iska qaado, waa in uu kala tashtaa qofka la soo raaciyay. muwaadinka u dhashay Kuuriyada Waqooyi telefoon dibadda ah kuma hadli karo isagoon ogolaanshiyo ka haysan xukuumadda dalkiisa. haddii kale waxa uu la kulmi karaa dil sida qasabtay. dadka qaar oo naftooda ku waayay arrinkan. ugu dambeyn, muwaadinka u dhashay Kuuriyada Waqooyi looma ogola inuu u dhoofo dibadda. haddii lagu qabto isagoo si dhuumasho ah ku socdo, waa la xirayaa islamarkaana waxa uu wajahayaa xukun dil ah. Waddanka Shiinaha. lama ogola in ruuxda qofka dhintay ee isku soo matasho nuuc kale geerida kadib haddaanu ka haysan ogolaanshiyo xukuumadda. waxaa jira dunida diimo qaba in ruuxda ama nafta qofka ay isku soo matali karto waxyaabo kale geerida kadib, sida qofka inuu mas noqon karo, noloshana ay ku soo noqonayso iyadoo sifo kale aan aadanuhu ahayn wadata. waa fikrad la yaab leh oo dadka kale agtooda aan laga aqbalayn, laakiin ay aaminsan yihiin dadka qaar. waxaase taasi ka yaab badan in xukuumadda China ay mowqif ka istaagtay arrinka, waxayna u diiday sanadkii 2007 suufiyada tabitaanka inay isku soo ekeysiiyaan haddii ogolaanshiyo ka haysan xukuumadda. in nolosha qawaaniin laga soo saaro waa caadi, laakiin waxaa yaab badan in geerida kadib qawaaniin la sameeyo. isla dalka Shiinaha, baarinimada waalidku waa waajib. wiilka dhalinyarada ah oo qoyskooda gooniga ugu nool waxa uu ku qasban yahay in uu qoyskiisa si joogto ah u soo booqdo, kalana qayb gala munaasabadaha diiniga ah iyo kuwa kale ee waalidka lagu raaligelinayo. sidoo kale waa ka mamnuuc waalidiinta in caruur badan ay ku dhalaan waddankaas. Australia. nadaafadda xilliyada qaar aan laga ogoleen magaalada Melbourne. magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan dunida, laakiin haddaad ku fikirto inaad mar un booqato, haddaad nintaaya isku dayin inaad haweeney isku ekeysiiso ama gurigaaga aad ku nadiifiso masaaxadda korontada ku shaqaysa ama faakumka inta u dhaxaysa 10 habeenimo ilaa iyo 7 subaxnimo maalmaha caadiga ah xilliyada fasaxa. rag iyo dumarba midkaa doontaba, haddii aad falkaas sare ku kacdo waxaad ogaataa in aad ku dhaxayso faldambiyad lagugu maxkamadeyn karo. Mareykanka. dameerka looma ogola inuu seexdo meelaha qaar. gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka waxaa mamnuuc ka ah dadka dameerada leh inay ku seexiyaan barkada qubeyska biyaha ee lagu siiyo. arrinkan ayaa salka ku haya dhacda sanadkii 1924 ka dhacday gobolkaasi, kadib markii mid ka mid ah dadka dameerada ka ganacsada oo uu kaga tegay dameerkiisii barkada meerashada ama biyaha lagu siiyo dameerka. waxaa dhacay fatahaado iyo daadad ku soo rogmaday gobolkaasi. kadib dameerkii uu hurda ayaa qaaday biyihii, kaas ayuuna ku qaraqmi gaaray. arrintaa ayaana keentay in dad badan oo ka mid ah kuwa xayawaanada u ololeeya ay abaabulaan warqad afti dadweyne ah oo dameerka loogu mamnuucayo in lagu seexiyo barkada yar ee biyaha lagu siiyo amaba loogu qabeeyo. qaanuunka ayaana la dhaqangeliyey si dameerka loo ilaaliyo. Scotland. waxaa ka mamnuuc ah musqulaha dadweynaha. waxaa jira qaanuun ka dhaqangalay dowladda Scotland oo mamnuucaya in musqulaha dadweynaha laga dhiso wadooyin
tallaabooyinka muwaadinka Scotland. Haddii uu musqul u baahdo, waxa uu xaq u leeyahay inuu garaaco guriga ugu dhow ee uu musqul ka heli karo. Qofka guriga iska leh uma diidi karo taas, haddii kale waxa uu wici karaa booliska, dacwadna wuu ka gudbin karaa. 6. Waddanka Brazil, xaaskaaga oo aad iska celin karto muddo 10 cisho gudahood. Ilaa iyo sanadkii 2002 dalka Brazil waxaa ka jira sharci ogolaanaya in ninku uu xaaskiisa iska celiyo oo qoyskeedii dib ugu celiyo marka uu arko inay gabar ahayn, laakiin waxaa waajib ah in muddo 10 cisho ah aynan ka badan muddada soo celinta. Kuwaasi waxay ahaayeen qawaaniinta ugu yaabka badan ee ka jira wadamada qaar ee dunida. Haddaba midkii kugula yaabka badnaa hoos nagula soo wadaag qaybta commentiga.